وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مدنيال iyo marweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wacyigelinta ee idinkaga imaanaya xarunta Samatalis oo had iyo goor ku howlan sidii dhammaan bulshada Soomaaliyeed looga haqabtiri lahaa wax kasta oo ku wajahan sidii ay dalka si wadajir ah u horumarin lahaayeen isla marhaantaasna ay muwaadiniintu u heli lahaayeen adeegyada ay dowlad uga baahan yihiin iminka waxaan idin soo gudbinaynaa aqoon kororsi la xiriira waxa ay dowlad tahay iyo waxa shacabku ka doonayaan dowladda ee iyagu markaasi dhisteen qodobkan waxaa si kooban inoogu sharxi doona walaal Suleymaan Cabdi Cali oo aan codbaahayaha ku soo dhaweyn doono بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام عبد علي iyo barnaamijkeennii wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada oo aad kala socotaan inta badan xarunta Samatalis baraheeda bulshada Facebooka, YouTube-ka, X-ka iyo TikTok-ka. Waxaa barnaamijkan wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada idiin soo gudbiya muwaadiniin isxilqaamay oo aad u danaynaya horumarka dalkeenna iyo dadkeenna. waxaan qaybtan barnaamijkeenna aan isku dayaynaa inaan kaga jawaabno su'aal dadka intiisa badan ay isweydiiyaan oo ah maxay tahay dowlad, maxaase loo samaysta, maxayse qabataa, adiga fahamkaaga dowladda muxuu yahay. haddii aanu ku horumarno marka waxa dowladi tahay waa wax dadka intiisa badan ay garanayaan oo waa nidaam bulsho leedahay ama ay samaysatay oo qaar ayaga ka mida loo doortay lana siiyey awood dheeraad ah inay xeer dejiyaan oo fuliyaan si markaas bulshadu si habsami ah u wada noolaato una horumarto. waxaa la is dhihi karaa marka baahida dowladda gormay bilaabatay, maxaa keenay, maxaase looga baaha. waxaan ognahay bulshooyinka caalamku marxalado kala duwan ayay soo mareen. mar waxay ahaayeen ugaarsato duurka ku jira oo miraha geedaha ka gurta, ugaarta duurjoogtaana ugaarsada oo sidaa u nool oo aan meel deganayn. markii labaad waxay ahaayeen reer guuraa xoolo dhaqata ah oo ayaguna aan meel deganayn. markii saddexaad waxay bilaabeen dadku inay degaan, beero qotaan, xoolana dhaqdaan, taasoo keentay inay samaysmaan tuulooyin, markii dambena magaalooyin noqday. mar haddii dadku meel dego ayna wadaagaan deegaankaas wax yaalla, hadday baad tahay, hadday beero tahay, hadday biyo tahay iyo hadday wax kala tahay, deegaan hadday tahay, waxaa imaanaya damac oo ah dabiicadda bini'aadanka. damacaasoo keenaya iska hor imaad, isku dhacyo, dagaallo, isu xoog sheegasho, xadgudubyo, dil iyo wax la mid. taas markay dhacday ayaa dadkii waxay arkeen inaan sidaan loo sii noolaan karin ee loo baahan yahay nidaam iyo kala dambeyn
iyo maamul iyo xaqsoor dadka u garsoora ama u xaqsoora. halkaas ayay ka timid in bulshadu ay doortaan ama u xilsaaraan qaar ayaa ka mid ah inay xerar u dejiyaan fuliyaanna si noloshu si habsami ugu socoto horumarna loo gaaro. dowladaha casriga maanta aan naqaan iyadoo marxalado kala duwan ay soo mareen waxay ku taagan yihiin 3 tiir. 3daa tiir oo wada shaqeeya, isla xisaabtama, kalena madax bannaan. 3daa tiir waxaynu inagu u naqaanaa golaha xeer dejinta, golaha fulinta iyo garsoorka. golaha xeer dejintu waa waxa aynu u naqaan golaha shacabka ama baarlamaan. golaha fulintu waa golaha wasiirada oo mararka qaarkoodna ra'iisul wasaare hogaamiyo, mararka qaarkoodna madaxweyne. garsoorku waa maxkamadaha iyo qawaaniinta ay ku dhaqmaan oo markaas u xaqsoora una garsoora bulshada halkaa degan wixii ka dhaca, haddii xadgudub tahay iyo haddii wax kale tahay. waxaan is dhihi karaa marka maxay tahay shaqada dowladda? shaqada dowladda innagoo aan ku fogaanaynin waxaan ku soo aroorin karaa 2 mas-uuliyadood. midda koowaad oo ah ilaalinta dibadda iyo ilaalinta gudaha. labadoodoo isku noqonaya ilaalin. midda kalena waa adeeg. labadaas mas-uuliyadood ayay ugu waaweyn mas-uuliyaadka dowladda. ilaalintii aan yidhi waa midda gudaha iyo midda dibadda. tan dibaddu waa xuduudahoo la ilaaliyo, hadday tahay dhul, hadday tahay bad iyo hadday tahay cir, oo laga ilaaliyo cid kastoo ku soo xadgudubta, haddii ay tahay dowlado, hadday tahay koox abaabulan ama shakhsiyaad ku soo xadgudbo. waxaa kale oo ay tahay ilaalintu tan gudaha. oo waxaa la ilaalinayaa maxay yihiin? waxa la ilaalinaya waxa weeye waa bulshada ku nool dalkaas. waxaa la ilaalinayaa ammaankooda guud iyo midka gaar oo ah ammaanka naftooda, maalkooda iyo sharaftooda. waxaa kaloo la ilaalinayaa xuquuqdooda qoraal, qowl iyo fikir. haddii ilaalintii intaan uga gudubno oo aan adeeggu u gudubno, adeeggu wuxuu ka kooban yahay qaybta koowaad oo ah waxbarashada asaasiga. adeegga asaasiga baa la yidhaahdaa oo waxbarashada, caafimaadka, nadaafadda guud, biyaha iyo wixii lamid ah. gaadiidkaa ka mid ah, isgaarsiintaa ka mid ah, tamartaa ka mid ah. tan kale oo loo baahan yahay in adeegga ka mid ahna waxa weeye dowladda waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay horumariso dalka kan, haddii ay tahay xag dhaqaale, xag ganacsi iyo xag kaabayaal dhaqaalow, si dalku ama nolosha bini aadamku ay hore ugu marto. intaas ayaan kusoo koobi karaa waxaa dowladda tahay, waxa looga baahday, waxa mas-uuliyaadkoodku yihiin, iyo ilaalinta iyo adeegga looga baahan yahay inay sameeyaan. gabayga waxaa la yidhaahdaa dowladnimo maxay tahay? da'da gabayga, deelka iyo xarfaha hadalku daanshoodka, dulucdi iyo afkaar toosan aan maanka deeqsiiyo, dareenkan qabana muujiyo waan damqanayaaye, daandaansi maahee runtaan diirka ka caddayne, dullinimada ii muuqataan dood ka furayaaye, dowladnimo maxay tahay haddii aan isweydiinno? dowladnimadu biliiliqo miyaa loo dabaaldegayo? dugaagnimo miyaa iyo rag aan diintu qabanaynin?
damuuqsiga indhaha iyo miyaa dabin la qoolahayo dagid iyo khiyaamiya miyaa dabab la oogahayo digashiyo colaad iyo miyaa dhiig dareerahaya sokeeyaha isdilayiyo miyaa dagalla aafoobay dulmi la isku laayiyo miyaa doobab naafoobay dulmi la isku laayiyo miyaa doobab naafoobay agoomaha dib jiray iyo miyaa asay dumarka loo saaray dayac nolosha aadmiga miyaa digo la hoos jiifo burburkaas na daashaday miyaa iyo damiir beelkan burburkaas na daashaday miyaa iyo damiir beelkan daanyeernimo miyaa iyo sidaan doono aan yeelo baarqab doobinahayiyo miyaa oo duudku dhabi yeeshay kursi lagu dakeeyiyo miyaa duunyo aan qaato sharcigoo la diidiyo miyaa xeerka aan dumiyo shacabkoo la duudsiyo miyaa oo daryeel waaya xumahoo la daa'imo miyaa oo dulmigu faafo damaaciga hunguri iyo miyaa danaha ii gaara xoolahoon dareersado miyaa intaan doono aan qaato shacab yahow idaawada miyaa oo durbaan qaata dalku aniga weeyee miyaa way dafiraysaane aabbow na daadihi miyaa oo idaba jooga dadka oo habuun qaba miyaa adigu daacdaacso danyar meel kastaba tuman miyaa daaro ka agjeexo dalal kale u kala goosh miyaa dabakhya meegaaro gaajana dadka u lay miyaa oo ku diigdiigso diriciyadaa hantida xada miyaa doqonow yeelkaaya diriciyadaa hantida xada miyaa doqonow yeelkaaye doqomo lagugu dilayiyo miyaa daaduf iyo tuugta dameeraha ciyaayiyo miyaa daaman kala qaadka nafaqadan darduurane miyaa hayga kala daadin darxumada ku noolow miyaa anna damaashaadka reer u kala didi miyaa shacabkan diifaysan reer u kala didi miyaa shacabkan diifaysan daacuunka cudurkiyo miyaa dacar la qooshahayo dowladnimo la sheegtiyo miyaa waxaan la doonaynin iska daba wareeg iyo miyaa daaha hoostiisa xafiis lagu dilaaltamo miyaa khaa'in dibad jooga dowdar aan wax qaban iyo miyaa jaahil daaduumay oo mooryaan ku daashaday miyaa dacayna kugu haysta mooryaan ku daashaday miyaa dacayna kugu haysta dibjir kugu danaystiyo miyaa doorashada been ah siyaasadda dilaalka ah miyaa oo doolar lagu iibsan dan wadaag qabiil iyo miyaa dulin wasiir kuu ah deeqaha la dhaca iyo miyaa darajo ceebeedka maafiyo degaanada miyaa oo jifo u dooran doqon baan waxgaranayn miyaa ee dantaa raaco doqon baan waxgaranayn miyaa ee dantaa raaco xukun la isku dilay iyo miyaa duud sirree hebelna dadkoo laga dulboodiya miyaa xoog ku daaduumi dirqis iyo dabaabaad miyaa daarahana dumiya colaad laysku dumayiyo miyaa hoobiyaha danana qabiil bay difaacin oo jirrida iigu soo deeqin xaabadii dabkana helay miyaa oo dantay gaari xaabadii dabkana helay miyaa oo dantay gaaray doodaha ha igu furin miyaa oo dulqaad yeesha dowladdan dhisiyo arag miyaa doorka aan qaato nin dadaalay baan ahay miyaa ee nimcada daaqa bulshadaa dayaysane miyaa anigu daadihiyey geesi daahiraanahay miyaa oo eebbahay doortay daacad ii ahaada miyaa oo ducada soo hoorsha anigaa isdoortaye miyaa darajo ii yeela anigaa isdoortaye miyaa darajo ii yeela guulwada darooriya miyaa habar durbaanley ah xilma dhibe dibiray iyo miyaa ducufo mooryaan ah yuutuyuubla daqaaqufa miyaa qurun dareerahaya dadku waa i jecel yahay miyaa oo dunidu ii sheegtay ammaantana haddaydan ku darin waan dawakhayaaye
shacab yahow daciifka ah miyaa doonta soo fuula shacab yahow daciifka ah miyaa doonta soo fuula mudanayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaadba waan kaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah ee aad siiseen dhegaysiga qormadan aynu hadda idiin soo gudbinay waxaad naga sugtaan waa samatalis oo mar kale idinku soo noqota oo mawduuc cusub idiin keenta intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu